wacan wanaagsan daawadayaal waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno arrimo xasaasi ah oo maalmahanba baraha bulshada la isla dhexmarayay taasoo ah ninka haddii uu xaaskiisa qasbo waa kufsi. barnaamijka waxaa idiin soo diyaarisay idiina soo jeedinaysa anigoo ah Asmar Cabdinuur Asmar Degan. waxaa maanta barnaamijka marti iigu ah Mayran Cumar oo ah aqoon-yahanad degan North America gaar ahaan gobolka Minnesota ahna gabadh dacwadda diinta fidisa ama ka dooda waxyaalaha diinta islaamka waxyeeleynaya. waxay samaysaa waqtigeeda fariiga ah inay booqato xabsiyada geysana kutaabada quraanka kariimka. sidoo kale waxay u tagtaa ay u samafashaa caruurta dhalinyarada ah ee aan haysan hooy ee ku nool wadooyinka. sidoo kale waa neuropath medicine waana gabadh qaadatay shahaadada baalashuudka ahna private pilot. Mayran kusoo dhawo barnaamijka. waa dhawahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa igu maqaalo ah Fadxiye Cabsiye sheekadeeda in nooc walba loo dhigay. wala yiri mar waa gaal diintay fidinaysaa mar la yiri waxay fidinaysaa dadka isku jinsiyada isku ursan kara marba si loo dhigay. bal marka hore inta aan su'aalahayga faraha badan ee wato aan u guda galin waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado Fadxiye Cabsiye adigu ma taqaanaa? waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaah. arrintan la wado waa arrin aad u culus. maaragtay horta hore cilmina horta ilaahay buu u sugnaaday. laakiin su-aasha ay weydiiso ah Farxiyo intee aqoon u leedahay? Farxiyo muddo yar baan aqaanay. waxaan ku kulanay meel ay lecture ka jeedinaysay maaragtay wasaaradda caafimaadka ee Minnesota qolo eco la dhaho ayaa anu shaqeynaa iyadana u shaqeynaysay oo dadka loo sharaxayo public health anaha iyadana ay tahay dadka cudurrada iyo waxaas faafa iyo in Soomaali loogu turjumo dadka aan maaragtay luqadda Ingiriiska garanaynin. muddadii yareed oo aqaanay Farxiyo waxaan ka arkay firfircooni, waxaan ka arkay qof qalbi aad u wanaagsan, waxaan ka arkay gabar maaragtay aad iyo aad uga gubataa xag walba, gabar diinta u heelisa, gabar Ilaahay iyo rasuulkiisa jecel inay tahay ayaan qirayaa oo ogahay. Farxiyo muddadaas yareed waxay sameynaysay movie oo maaragtay waxa ku dhaliyana waan weydiiyay. waxay igu tiri waxa igu dhaliyay inaan sameeyo nin ajnabi ah gabar Soomaaliyeed jacayl dhex marayo. Minnesota waxay ku aragtay gabdho badan oo wiilal ajnabi ah guursaday marka oo qaar ay dacwoonayeen markaas oo la cunsuriyeenay wiilashii iyagoo muslim yihiin xataa lagu cunsuriyeenay nin ajnabi maxaa u guursatay. taas waan ku bartay oo waan ogaa iyadoon xumaan ka wadin. kadibna way baxday email aan isku diri jirnay laakiin inta aqoon ka aqaanay waxay ahayd xaggaas caafimaadka meesha ka shaqeynaysay iyo maaragtay intii yaroon aqaanay inay ahayd qof aad u wanaagsan oon xumaan ku tuhmaynin oo gabar muslimada tahay hooyo fiican tahay ilmaha maaragtay yaryar iyo maaragtay waalidka iyo xag walbaba jecel inay maaragtay ka caawiso wixii community-ga ah. intaas ayaan ka garanaya. arrintan kale oo leedahay waa la wadaana oo social media dhex yaacaysana waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay quraankiisu nooga hadlaya suuratu xujuraad Ilaahay uga hadlaya isagoo leh war hadduu war xun idin yimaado yaan la faafinin maaragtay hal hubsado soo ogaada si aadan hadhow uga shalaayin oo du oran marka gadaal warkii ka ogaato warsaan umaan malaynaynin oo dambi kaaga dhicin oo qofkii walaalka ahaa aadan daniin daniga ma wanaagsana qofka qalbigiisa kuma jirtid mar walba in dhanka wanaagsan la fiiriyo. laakiin social media wuxuu noqday qofka xumaan wixii gadmaya waana social media western world wararka hadda CNN iyo wax wanaagsan ma sheegaan because cid fiirsanaysa ma laha. Soomaalidii waxay noqotay qofku doona ha noqdee
ilaah baa garanaya niyadooda laakiin waxay u eg tahay dad raadinaya attention badankoodii dad lacag ka sameynaya dad wixii xun markii la sheegay raba in maaragtay lagu soo yaaco oo wixii la buunbuuniyo meel aad u waalan inay noqotay oo maaragtay aanan ka qaadan karin resource dadkan miidiyaha ku jira waxay sheegaan inaan mar walba hubina ay wanaagsan tahay. waa gartay waa sax hadalkaas sheegtay hadallo fara badan ayaa intii xumaanta kaliya intii laga soo jarto la faafiya. haddaba gabadhan waxay bixisay interview Fadxiya waxay sheegtay sida interviewga kulay ulajeedkeeda muusan ahayn inay ka hadlaysay rag iyo dumar marka ayada ah laakiin waxaa la galay su'aalihii marka waxay sheegtay oo la isku haystaa ninku haddii gabadhiisa uu qasbo xaaskiisa uu qasbo inay tahay kufsi arrintaa maxaa ka leedahay? horta hore arrinta kufsiga waa inaad aan maaragtay ogaanaa ma jiraan gabdho Soomaaliyeed oo kufsi ninkeeda u geystay horta waa inaan marka hore fiirinaa hadday jiraan waxaan u baahanahay see lagu xaliyay anaga diinteena muslimka haddaan laba u kala qaado shareecadeena waxay dhigaysaa in wax walba oo maaragtay xukun wax lagu xukumo gabar ninkeeda xoogay intaan noolaa western wall intaan badnaa oo maaragtay nolosheeda waxaan ku qaatay wadamadan west so Soomaaliya intaan jooga waa yaraa ma maqal nin loo soo xiray xaaskiisu xoogay wadamadan westiga hadda aan joogno xataa Mareykanka ah 13 maaragtay gobol mooyaane waa 50 gobol inta kale oo ah 37 wax weyn ma ahayn markii loo fiiriyo maaragtay wixii ka horeeyay eediyadii gabadha haday dhahdo ninkayga ay xoogay wax xiri jiray iyo xukun iyo waxba ma jirin isteediyada dumarku aad xuquuqda u leeyihiin sida Minnesota ay ka mid tahay kale haday dhahdo ninkayga ay xoogay waxa laga yaabaa in loo diro therapy maaragtay counsel marriage therapy in loo diro waxa laga yaabaa 30 days oo xirnaado iyadoo waliba cadeyn la rabo inkastoo Minnesota gabadha hadayba dhahdo nin baa saa igu sameeyay aad baa maaragtay u yihiin dadka aad u doona advocate oo maaragtay meel walba ay furteen domestic violence rape all of that marka gabadhaha xuquuq aan gobolada kala lahayn ay leeyihiin Minnesota soo haday tiraahdo xataa ninkayga ay xoogay waa la xirayaa laakiin diinteena islaamka markaan u soo noqono ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan quraanka fiirino muxuu ka leeyahay xoogitaanka markii laga hadlayo haddaan soo qaadano ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka si qurux badan buu uga hadlay dumarkana ilaahay aad buu maaragtay xaqooda ku siiyay quraanka way jiraan gabdho Soomaaliyeed ama muslim aaminsan quraanka inuu ragga u heeliyay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuratu nisaa aayadeeda u horeyso xataa ilaahay ka hadlaya oo leeyahay maaragtay inuu maaragtay war ilaahay maaragtay wuxuu leeyahay in aadan anaga nagala sameeyay in la xaq dhowro maaragtay dumarka xaqeenyu ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa maaragtay aayada suuratu nisaa 34 inuu ninka maaragtay anaga hooy maaragtay raashin daryeelkeeni uu maaragtay mas'uul naga yahay ma aha inuu xukumo laakiin inuu maaragtay dhibaato nagu imaan inuu na protect gareeyo inuu na care gareeyo inuu cunto na siiyo inuu macal ehelkeena maaragtay wanaajiyo anaga macnaha diinta macnaha xuquuq badan ay siisay al-baqara kale maaragtay suurada aayada 187 ilaahay wuxuu ka hadlayaa mara isku tihiin u leeyahay waad garan kartaa maradaada laanteed banaanka ma u bixi kartid marka maradaada haday wasaqoodo waa dhaqanaysaa maradaada waa wax jeceshahay inay nadiif ku ahaato ninkii naagtana inay saa isku yihiin oo maaragta labadaba isxaq dhowraan is wanaajiyaan suuratu ar-rum sidoo kale aayada 21 ilaahay wuxuu leeyahay waxa la hadlayaa ragga waxa idin sameeyaa leeyahay oo idinka sameeyay naftiina dumar
kuwaasoo la rabo inaad isku xasishaan. Ma aha inuu ninka naagta la leeyahay adaa lagu sameeyay ku xasil, ma aha inaad isku xasishaan. ilaahay wuxuu leeyahay waxaa idin dhex dhigay maaragtay jacayl, ninkii naagta jacayl baan dhex dhigay, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay calaamadahayga ka mida. bal jacayl lagu geliye ka war, qof in isku midab ahayn, isku maaragtay isku ekayn, isku qabiil ahayn, qaarada ka imaateen baad jeclaanaysaa, u naxariisanaysaa, u naxaysaa. maanta dhan leedahay hebel waa daalan yahay ama hebel saana. macnaha ilaahay taa kaliya mucjiso ah nin iyo naagta inuu ilaahay jacayl iyo naxariis dhex dhigay. haddana ilaahay subxaanahu watacaala marka suuratu nisaa aayadda 19 wuxuu leeyahay maaragtay in uusan ninka maaragtay uusan qasbin, uusan xoolaheeda ka qaadan, uusan maaragtay dhaxalka hadday timaado reeraheeda maaragtay dhaxal oo kale oo lacag haysato kale u guursan lacagta ka dhaca, inuusan maaragtay dilin, inuusan dhibaateynin oo dhibaato uusan maaragtay ku haynin gabadha, in maaragtay uusan xoogin oo xoog ku haysanin oo xoog ku guursanin, inuusan dili karin, iska dili karin. ilaahay subxaanahu watacaala wuu uga digayaa waxaasoo dhan, nimankaa looga digayaa inuu marna masruufkeedii wanaajiyo, inuu mar maaragtay ilaahay intaasoo tusaale wuxuu u sameynayaa ninkaa lala hadlaya maaragtay inuu u naxariisto, inuu gabadhiisa jeclaado, inay isku naxaan. hadday gabadha dhibaato la timaado oo ninkii ay tiraahdo isagoo xalaala war iima tegaysid, calashaan tiisinay dhahaan mararka qaarkood, inta isqorxiso wiilkii istustusto oo haddana ay dhahdo maaragtay ganax ahaan iima tegay sidoo kale, haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan inuu xooga ma aha. waa gabadhiisii habeenka saddexaad hadday carabaa ba'do mar walba way u joogtaa, laakiin xoogitaan wax qasbaya male. xoogitaanka waa wax hal mar dhaca oo ninka intuu gabadha xoogo ama lala aado diiniyan shareecada islaamka ama maaragtay ehelkeedii ama maaragtay xukuumadda marka wadankaas la jooga ee samayso. xoogitaanka ereyga ah baan ku jirinin in nin iyo naag ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay mawadda raxma idin dhex dhigay oo qamiis baa isku tihiin, oo ilaahay uu ka hadlayo gabadhii maaragtay wanaaji, marka ma dhacayso in uu ninkii xoogo. ma maskaxdu la yahay ma waxbaa jira, ma daraagaysan yahay. way dhacdaa in maaragtay gabadha intay isqurxiso gurigii ilmihii seexiso oo maaragtay caawo dhan ay sugto, taleefanadii uu ka xirto oo isku qurxiso ninkeeda, isku diyaariso, ay seexato. habeen barkii waxaa laga yaabaa isagoo cabsan inuu yimaado oo markaa dilo, reerkii dhan salaliyo. uma malaynayaa inuu jiro qof islaama oo diinta islaamka haystaa inuu u ogolaanayo in ninkaa reerka saa u dhibaateynayo ama uu qaad soo cunayo. rag waxaa jira markay qaadka cunaan aan joogaynin dumarka inay u tagaan mooyaane joogaynin, oo waa drugs. dad baale ma aha, laakiin qaadku waa drugs. marka saasoo kale hadduu yiraahdo gabadhii habeen barkii kiciyo, na waa kuu baahanahay, laga yaaba inay ilmihii ku daasho, laga yaaba inay umul tahay, laga yaaba inay xayd qabto, laga yaaba inay uur leedahay. qofka bini aadamka saasuu u leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala. war naxariista lagu sheegayo ilaahay dhex dhigay waa calaamo lagu leeyahay. ma maqal noloshayda aniga wiil sun cabay hooyadiisu jecelyahay, ama wiil walaalkiis daraadiis jacayl uu qaba sun cabay, ama gabar maaragtay sidoo kale wiil daraadiis hooyadeed ama aabaheed jacaylkeeda sun cabtay. mucjisada jacaylka kaliya ilaahay dhex dhigayo ninka iyo naagta ayaa waxay tahay wax weyn. waxaa laga yaabaa gabar inay reerkeedii soo koriyo weynaatay, maaragtay dhahdo ninkaasaan rabaa, oo laga karaynin. waa jacaylka mucjisada ka waran. ilaahay qofkaas aysan aqoonay u ordaysaa oo laga reebi lahayn, oo sun cabaysaa, ay ka daba cararaysaa, oo aysan u qabinin hooyadeed iyo walaalaheed. jacaylka kaliya ilaahay wuxuu leeyahay maaragtay calaamadahaygay ka mid yihiin awoodiisa. bal ka waran jacaylkaas kaliya aan la koobi karin. marka qofku hadduu jecel yahay uma malaynayo inay horta hore xoogitaan imaanayso. xoogitaankana wax ku xukumaya hadday dhacdo ma jirto. sida xuquuqa waalideynka, ninka caasiga ah oo waalidkiisa xumeeya ku afceliya, ma jiro sharci dhahay hala xiro. waxaa ka weyn xuquuq waalidiinta, ka weyn tan ninka iyo naagta. macnaha ninka naagtiisa xooga waxaa ka sii weyn ninka hooyadiis dilaya ama aabihiis dhibaateynaya. oo ilaahay siduu uga hadlay qur-aanka waalidiinta loo ixsaan falo, ka waran nimanka dila, dhibaateeya, banaanka dhiga, sharci ma jiro xiraya. marka taasoo ka weynba ma jiro sharci xiraya. laakiin ilaahay maaragtay indhihiisa ma ogola, oo ilaahay wuxuu nooga hadlayaa suuratu nisaa 19 inuusan xoog ku guursan karin, inuu xoog xoolaheeda ku qaadan karin. xoolaheeday ka mid tahay, jirkeeday ka mid tahay gabadha, iyo xoolaha la leeyahay ilaahay leeyahay ha ka qaadanina, xoog ha uga qaadanina.
waa isla meesha xataa waxa la leeyahay ninka hadduu naag mehersado oo uu la dhaqmo niman baa waxay dhahaan gabadha haddii did xoolahayga yaan rabaa ha ka qaadan inuu leeyahay ilaahay ma been baa qaadanaysaa inuu leeyahay xaq darro marka ilaahay xaqeena wuu noo dhammaystiray waa gartay aada u mahadsan tahay maxaa is leedahay marka way keenaan markay gabadh tiraahdo gabdhaha Soomaaliyeed way dulman yihiin ama ay noo hadasho raggu maxay maxaa la dhahaa noo xaqiraan xaqeena noo siinin ayagii gabadhii noo hadashana ay ula diraan waxaan u malaynayaa horta hore qofka waxay ku xiran tahay sida u hadlo haddii gabar islaamada oo si wanaagsan u hadasha oo ka garbaxda waxa waaye way garawsanayaan laakiin si qaldan oo maaragtay si kala loo dhigo oo lagu kicinayo gabdhihii diintii lagu liidayo culumadii loo aflagaadeynayo nimankii Soomaali loo aflagaadeynayo taas way ka duwan tahay laakiin waxa fiican mar walba inay ragga gabdhaha u naxariistaan qurbiyay ku dhiban yihiin meel walba ku dhiban yihiin in aan gabadhii hadasha ay ku noqoto qatar oo iyadii dhan lagu jeesto la ataago xaq ma aha waxana ay tahay mid colaad keenaysa oo gabdhihii u arkaan nimankii inay diinta isxijinayaan diinta waa la wada leeyahay ma fahmaysaa waxaan ka wada leeyahay laakiin ma aha haddii la dhaho Soomaalideena u badan haddaa qof qaldan toosisi sidiisaba uu xanaaqaya Soomaalidu waxay ku maamahadaan ninka weyn hortaaba u xanaaqa nimanku way naga xoog weyn yihiin marka gabar hadasha ma jecla waana qalad sababtoo tahay maaragtay Umar bin Khadaab ayaa waxa jiray markii waqtigu maaragtay ahaa khaliifka inay gabar saxday isagoo ka hadlaya meherka oo tiri wax nabigeena sallallahu alayhi wasallam noo baneeyay miyaa naga xaratmeynaysa oo uu yiri Umar maaragtay uu isdhiibay ma uusan dhihin waa gabar way hadashay hal dilo ama waxaas lagu sameeyay ma aha diinta xaqay leedahay hooyadeen Caasha maaragtay intaasoo xadiis maaragtay soo qortay oo cilmi ah marka gabdhaha in la jaafiyeeyo in maaragtay dhibaato lagu sameeyo in laga been sheego ma wanaagsana sababtoo ah xadiis baa jira inaan ku cilmi qaadano Aisha binta Abu Bakar waa la caay been baa laga fidiyay marka wax walba in la hubsado ayaa fiican waa gartay marka mayrinay adigu waxaad taqaanaa cilmiga inaad la doodi kartid qof gaal ah oo diintaada ka soo horjeeda ama qof muslim ah oo diintii loo baray inay diin xun tahay waxyaalaha ku doodina waxaa kamid ah inaad tustid qofkan wuxuu diinteena ka tabanayo iyo wixii maxaa la dhahay uu isleeyahay way wanaagsan tahay ka soo horjeeda diinta waxaan rabaa marka inaan dhinac kale u dhigo maxay ka qabtaa kitaabka Bible-ka haddii aad kufsiga arintooda ku soo laabano sida ogahay waa taqaanaa Bible-ka dhinaciisa maadaama la leeyahay hadda sheekadani waa sheeka Christianity ahoo dhinaci kale loo rogay diinteena islaamka waa noo sheegtay bal dhinaca kale diinta Christianka maxay ka qabtaa diinta Christianka waa injiil weeyaan waa kitaabadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabuur oo kale furqaan oo kale oo anaga haysano iyo tawraad oo maaragtay ah reer Israa'iil marka oo yahuuda haysta diintii Nabi Muuse weeyaan labada kitaab jiro Christian al-dhaha labadooda way isku dhagan yihiin way isleeyihiin waa book New Testament iyo Old Testament ay u kala bixiyeen marka waxay ku doodaan badankooda oo aad u dagaalamayaan gabdho badan hadda Soomaali ee Kiristinimadii qaateen in xijaabkan raggeena nagu qasbaan in maaragtay arintan hadda aad ka dhawaajiseen inay nimanka muslimka aad dumarkooda xoogaan in gabadha aysan amarka banaanka bixi karinin inay wax baran karin inay macnaha aad bay waxay u dhaleeceeyaan oo ay ataagayaan waxaas oo dhan waxa sameeyay waxay leeyihiin nimankeena waay marka arintan oo hadda ninka naagtiisa xoogi karo kitaabkeena kuma taalo lagama hayo saxaabadii lagama hayo taabiciintii ilaa iyo maaragtay afarta madhab ilaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam naagu xoogay lama hayo diinteena laguma hayo laakiin Bible-ka
waxay dhigaysaa Trinity waxa weeyaan Trinity 2 chapterka 2 aayadda 11 haweenku waa inay aamusaan ma bahadli karaan ilaa maaragtay ninka amarkiisa mooyaane. waxay kaloo ka hadlaysaa Corinthians 4 naagta gogasha ninkeeda ma diidi karto sababtoo taa waxay leeyihiin naagta jirkeeda waxaa laga abuuray aadan soo iyada jirkeeda ma laha aadan ayaa leh bas iyada aadan baa laga abuuray waxaa loogu abuuray inay ku istareexdo maaragtay uu ku istareexo isaga inuu ku istareexo marka taasaa keenaysaa in ninka gabadha Kirishtanka aysan diidi karin taasaa keeni karta in gobolo badan hadduu xoogo xataa ninkeedan waxba loo arag because waxa leeyahay jirkeedaba waxaa la ninka iska lahaa because aadan annaga waa ka duwanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga wuxuu leeyahay inaad maaragtay isku xasishaan suuratu ar-rum maaragtay aayadda 21 macnaha inaad labadiinaba ku xasishaan ku istareexdaan ma la oranin aadano maaragtay naagta kaliya adaa lagu sameeyay ku istareex ma nala dhihinin haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga wuxuuna leeyahay nin iyo naag iyo jinni iyo inaan annaga maaragtay macal xayawaan kulli wax ilaahay abuuray qalbigiisa dhan inaan caabudno isaga kaliya noola abuuray ma noola abuurin annaga inaan maaragtay sida diinta Kirishtaanka nimankeena gabadha waa inay xijaabataa Kirishtanka haddaysan xijaaban waa in madaxa laga xiiraa gabadha Kirishtanka haddaysan maaragtay aysan maaragtay wax barato kale waa in gacanta laga gooyaa macnaha qofka diinta Kirishtanka qaadanaya hadday kaniisadda tagto waa inaysan hadlinin waa inaysan ragga iska sara marsiinin macnaha kitaabkooda kulli ku qoran tahay qof walba hadday rabaan maaragtay waan siin karaa aayadihii waqtigaa noo saamixaynin laakiinse way jiraan dumarka xaasaska awood uma laha jirkeeda waxay u siisaa oo iskale ninkeeda si sinada ninka ee ugu badanin nin walba waa inuu haystaa naagtiisa waa chapterka Corinthians 7:4 marka naagta xaquuqda ay ku leedahay gabadha Kirishtanka markii Bible-ka loo filo way dulman yihiin marka iyagii waxoodii bay anaga noo malaynayaan inaan nahay marka iyagoo baranin kitaabkii hadda ku tiraad kitaabka ma akhrina kuleeyeen laakiin saas waa in la gumeystaa laakiin hadda dhahdid Jesus mother soo ta xijaaban soo ta aayadiinan ay dhigayso maaragtay gabadha hadaysan daboolan madaxa laga xiro macnaha iyo ninka xoogaya oo dumarkiina u tagaa leeyahay hadda aragtaan maaragtay wax indhihiina macsi geliya hadday idin diida xooga ma bahadli kartaba macnaha waa inay aamustaa Bible-ka leh Kirishtanka leh marka anaga nimankeena muslimka ma oran karaan diinteena noo banaysa gabadha xoogda because waxa iskhilaafaya markaas diinteena waxay noqonaysaa midaan saxsanayn sababtoo taa iyaga kitaabkooda dhigaya marka iyaga kitaabkooda wixii qaldanaaba anaga kitaabkeena saxay marka ma dhici karto ina maaragtay wixii diinta Kirishtanka ay dhigayeen anaga ay dhigto anaga noolama abuurin aadan inuu nagu istareexo anaga ilaahay wuxuu noo abuuray inaan caabudno nin ma caabudayna anaga hadda gabadha xataa Kirishtanka hadday ninka guursato magaciisa qaadanaysa last name-ka anaga ma qaadano aniga aabahay iyo nasabiidii awogayga ma tirtirayo ma qaadanayo laakiin gabadha Kirishtanka way qaadanaysaa okay su-aasheeda ugu dambaysa waxa waaye weli ma aragtay gabadh Soomaaliyeed oo kule odayga ay kufsaday laakiin nin cabsan buu ahaa habeen barkii yimid reerkii dhan uu salaliyay waan soo wacday habeen barkii aan u gurmano u tagnay marka xaaskiisu kufsaday kufsi ma inuu isku dayay laakiin wuu isku dayay wuu rabay laakiin kufsiya ma dhicin horta aan ku sheego gabar Soomaaliyeed uma malaynaan in la kufsanayo gabdhaheena waa gabdhaha ugu adag adduunka naag gaalaya xataa oo heesta oo shareey la dhaho xataa way ka heestay say strong u yihiin waxa tahriibaya waxa meelaha maraya adduunka markii loo fiiriyo gabdhaha muslimka gabadha Soomaaliyeed waa gabadha kaliya tahriibta waa gabadha kaliya reer dhan soo dhoofisa waa gabadha kaliya inta lacag diraysa waa gabadha meeshii ninka booska buuxisay laga rabay inay gabadh ahaato iyada gabdhaheena qaar kood iyaga nimana iyaga baxaya nimankii soo guursanaya keenaya
ma fahamtay marka gabdhaheena gabar Soomaaliyeed in la daroogeeyo iyo in maaragtay niman badan lagu xooga mooyaane gabdhaheena lama xoogi karo iyaga nimankooda qaar dila iyaga indhaha baalkooda hadee murbaanba uga horeyso waa markii xaqiiqda laga hadlo gabar Soomaaliyeed xataa Sheekh Khalid Yaasiin baa ka hadlay oo leh ninkii aan xamili karin naag Soomaaliyeed oo ha guursanay waa nin Afro-American u dhashay because way kulul yihiin uu yiri laakiin kitaabkay wadaan waa gabdho maaragtay aan Google dhaaf aqoonin waa gabdho wanaagsan oo diinta garanay laakiin way kulul yihiin hadalkaaga ma harayo hadda hal tiraado shanay kuleed uu yiri marka iska dulqaad uu yiri laakiin waa kulul yihiin uu yiri marka gabdhaheena Soomaaliyeed gabdho aad u kululaana sababtoo ay tahay marka yar tahay ba waxa weeyaan baa lagu korinayaa adayg iyo naxariis maaragtay jilsilic la'aan gabdhaheena inay noqdeen marka ma u malaynayo laakiin ninku uu isku dayi karaa hadda gabadhaas oo kale habeen barkii sas ku riday iyadii umulay ciyaalkii wuxuu daba socday inuu iyadii halka ku dhago iska tuurto laakiin uu isku day laakiin xoogitaan ma maqal ugu dambeyn barnaamijkan rabaa inaan soo gabagabayno maxaad faraysaa fariin u diraysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa meel walba caalamka joogta waxaan leeyahay in qofka walaalka ay mar walba dhanka wanaaga laga fiiriyo inaan xumaanta la faafin in wanaaga la isfaro in nimanku aysan ka hadlin wixii dumara haddii gaaladii adduunkii oo dhan ku eedeynayaan raggii iyagii baa gabdhihii gumaystay iyagaa xijaab ku qasba iyagaa diinta ku qasba iyagii baa kufsada iyagii baa saas iyagii haddana nooma doodi karaan noogama horeyn karaa meesha waa inay arrintan gabar ka hadashaa gabar bay ku habboon tahay gabdho badan oo cilmi badanaa jira gabdho iga cilmi badanaa jira cilmi aniga meesha kuma hayo laakiin waxa weeyaan ilaahay cilmiga ha noo siyaadiyo laakiin waxa weeyaan in waxa waaye ragga ee gabdhaha u daayaan inay iyagu isdifaacaan hadda arrinta gabadhan gabdhaheed inay ka hadlaan inuu ka hadlo umaba banaanaba inuu nin ka hadlo arrintan waa arrin dumar marka korkeena bilis xawlay kaba isma dheer anaga is dareemayna anaga is og gabdhaha ma jiraan qaar dulman way jiraan gabdhaha ma jiraan qaar nimanka dulba yes way jiraan gabdho waxa arkaysaa wiil soo dhoofiyeen imaadeen halka ka baxaysa xaqiisii oo dhan qabto waa xaraam gabar ninkeeda isku diidaysa oo dhahaysa ma raba kan waa nacay way jirtaa oo ku gumaysanaysa wiilkii sariirta ilaahay xaqiisa ma banaan tahay may waxa fiican labada qofba inay is ixtiraamaan sidoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo sheegay inuu naxariis iyo maaragta raxmadna dhex dhigay oo qofka kala wanaajiyo taas ay guurku ku fiican tahay aad ay u mahadsantahay Meeran waana kaaga mahad celinayaa ogolaanshaha iga ogolaatay maanta in arrintan aan falanqeyno ma isku diyaarin laakiin waad gaarday laakiin is okay aad ay u mahadsantahay daawadayaal inta aan mid kan la mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa anigoo ah Asmar Cabdi Nuur Asmar Degan sidaa iyo nabadgelyo